awdayal war degdeg ah oo naga soo gaaraya magaalada Istanbul oo markaasi dhulgariirkiiba ka daran ayaa waxa uu sheegayaa in bulsho aan dhawaan ku baahinay warbixintooda halkan oo ahayd in bulsho markaasi dad Soomaali ah in laga dhacay lacag gaaraysa 1,600,000 oo lacag adduuna ayaa dadkii ayaa mar kale soo hadlay waxayna markaasi ku nuuxnuuxsadeen ahmiyadda ay u leedahay in lacagtoodii ay markaasi helaan aysan ka maarmi karin haddaba dadkaasi ayaa waxa ku jiray dad waaweyn oo markaasi waayeela dad markaasi dhalinyaro ah oo aan laga yaabin inaysan wax intan u dhaafisa aysan hayn dad dhexe iyo sidoo kale dadyow kale oo iyaga qudhoodu aan hadlayn oo sariir yaala sariirtana jiifa markaasna xanuunsanayana haddaba arrintaas oo dhan ninka ku sameeyay ayaa lagu sheegay inuu yahay nin lagu magacaabo Geele oo deegaan ahaan ka soo jeeda markaasi Caabudwaaq Cadaado iyo dhankaas haddaba muuqaal ay kaga hadlayeen arrintaasi ayaan idin hayaa kaas oo ahaa muuqaalka hadda halkan hoose idinka muuqda bal marka hore aan wada daawano dadkaasi anagoo codkayna meel ma gaaray laakiin waxa kaliya waxayna ku haystaba inuu codkayna gaaban yahay codkayna qof kor u qaadaa rabnaa aniga magacaygu Axmed Cabdisaaq Maxamed waxa iga maqan $2,700 aniga waxa iga maqan $11,000 aniga waxa iga maqan $14,160 bismillaahir rahmaanir rahiim waxa iga maqan $4,250 aniga magacaygu waa Cabdiraxmaan Shafiic Aadan waxana iga maqan $5,000 $6,350 $4,850 geelo ilaahay ka baq maatida xoolahooda iska soo sii hooyaday way iga bugtaa way iga xanuunsanaysaa dhakhtar bay iga jirtaa ilaahay intood ka cabsato bir rabadaan baa lagu soo galayaay ilaahay ka baq oo xoolaha ayagiina sii ninka geel la yiraahdo way dhacwaa tuug ilaahayna kama baqanayo oo hantida maatida oo dhan oo qaatay annagoo ku rafaadsan Istanbul oo xoolaheena naga dhacay wuxuu iga dhacay $4,500 ilaa haddana wax aan ka heena malaha hadduu ilaahay yaqaan xoolaheena hana siiyo hadduu ruux islaam yahay waxay naga maraysaa meel xaalkaynu ilaahay oo og yahay maqal iyo muuqaala soo dhigaynaa hana loo qabto hadduu islaam yahana hanoo soo jawaabo kii walaalo ah kii asaga ilmaadeer la qabiilkiisa aniga mariixaan waxa ku ogaa dad fiican ka bartay oo waliba reer diini iyo reer dalalka laftirkooda dad fiican ka bartay warfaad dalal waa ninkaas horan waa idin kugu soo sheegay reer warfaad dalal oo ninkaas naga qabsada xoolaha agoonta dadka lama mid maaha waa dhimbilo naareed wuu og yahay hadduu muslimnimada raad ku leeyahay daba muuqaalka oo dheer kama gayoonayno balse waxaa jirta dhacdo naxdin badan oo ku saabsan hooyo Soomaaliyeed oo wiilkeedii keentay kadibna markii ay Turkiga keentay oo dhintay waxaana arrintaasi loo sameeyay ka gadaal kadib markii lacagta uu geela dhacay haddii loogu shaqayn lahaa oo dhakhaatiirta lacagta lagu bixin lahaa in wuxuun ay hagaagi lahayd inkastoo qadartii Rabbi ay u timi waxaana la sheegay in wiilkaasi geeriyooday haddana ay lacagtii ay ku ambabixi lahaydba aysan haysan bal muuqaalkan ila daawado wiil xanuunsanankeeda meesha uu iga geeriyooday lacag yaroon meesha ii taallay oon rabay inaan ku tago oon ku baxo lacagtii waa ka asaga la goostay ilaa hadda ma hayo 5 bilood biil meesha kuma haysto wax kaloon meesha ku haya male lacagtii aan tigid ku goosan lahaan asaga qaatay ma ahan haddii aan aamusnay waxayna aan ka samirnay waxayna kamaana sabrin waan ka rabnaa waan kugu leenahay sida ugu dhaqsiyaab rabadaan baa la soo galay dad xanuunsan baa jira dad baahan baa jira waayeelaa jira dad dhintay baa jira istaalada buuxa horta geelow nin ilaahay garanaya taa tahay rasuulkiisana garanaya dadkan maatida wuxuugii soo sii waa bir rabadaan oo barakaysan ayaa soo socota haddaad ilaahay taqaano oo rasuulkiisa taqaano dhowr jeerna waa lagu cawday dhowr jeer odayaal ugu dambeyntii ilaahay ha u gargaaro dadkaasi waa dad xaqiiqatan dhibban oo markaasi dib weyn uu u geystay ninka lagu magacaabo Geele waxaana Allah subhanahu wa ta'ala uga rajeynayaa in lacagtaasi uga soo ururiyo maadaama lacagtaasi dadka qaar ay sheegayaan inuu markaasi uu iribood iyo wax la mid ah ku dhisay balse anagu arrintaasi cadayn uma hayno balse ilaah waxaan uga rajeynayaa inuu markaasi muuqaaladan dadku ay u soo duubayaan u dhageysto anigoo aan lacagtaasi qaadanba ayaaba arrintan aad iyo aad uga naxay oo markaasi wax laga murugooda haddana maxaad u malaynaysaa bal qofka lacagtaasi cunay cuquba baa ku dhacaysa laakiinse lacag adduuna waa la helaa waxaan rajeynayaa inuu ninkaasi
oo yani lacagtaas usoo celiyo dadkaasi masaakiinta ah. Yani waxaad arkaysaa mid 30,000 waa iga maqan tahay, mid igula 10,000 baa iga maqan, mid igula 5,000 baa maqan, mid 50,000, mid marka daawadayaal bal muuqaalka sii sheergareeya bal si uu intaad sheergareyn kartaan. Safaaradda Soomaaliya uma malaynaya inay arrintan yani wax ka qaban karto, sababtoo ah lacagta waxay u baahan tahay caddayn iyo sidoo kale yani de lacag 1,600,000 oo doolarka Mareykanka ah. يعني تركيا يحكي كل ذا ويابي سبا وأنا وح مركز عجيبة عضد يود يعني يعيو تهريب كالصعدة ولا ليه هالمليون اللي بقوله كونه دولار لقفر سمية وهو impossible مركا يعني سفارة مو ملايين يدل على الله شير قريلا كيس نكاس أنت كلية دولتنا كعجم سقاطك رتيت كنا كلام سقاطي نكاس وإسكرت أو يعني إلهي درتي لعكتها أسوء عليا تذكرنا أسوء عليا on bay ku hagaagi kartaa, laakiin si kale kuma hagaagi karto. muuqaalkana Mariixaan oo sheergaray oo gaarsiiya Master Geele ninka lagu magacaabo intaas inoo iga kaftan. waana mahadsantiin saaxiibayaal.